والعاكس في حالة ميانا نافعين واربو تشدميانا رقمن واردكن مسافاري با وميا ما بسسبان لغو سوقري واكعدون شعب أبوغ الصومالي لان إنaynu ka nixino diyaar ma u nahay maanta waa maalin kaloo weyn waa maalin xisbiga dimuqraadiga iyo horumarka xisbiga dimuqraadiyadda iyo horumarka jamhuuriyadda Soomaaliland uu mar kale u diyaar garoobayo inuu gala doorashooyinka madaxtinimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee dhici doonta 13 November 2024 xisbigan waa xisbigii hogaamiyaashiisu ay yihiin raggii dalka xoreeyey iyagoo yaryar dhiiggooda u soo shubay doorashada November 13 diyaar ma u tihiin inaad doorataan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa maxamuud xaaji sacad saajin diyaar ma u tihiin kulmiye mar kale inaad kalsoonidiinna siisaan diyaar ma u tihiin kulmiye inaad kalsoonidiinna siisaan mar kale walaalayaal waxaynu wax ku doonaynaa waa horumarkii uu soo bilaabay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo waa horumarkii uu sii amba qaaday madaxweyne muuse biixi cabdi walaalayaal maanta waxaynu doonaynaa doorashada inaad kaga jawaabtaan 7 sannee la soo dhaafay wixii cay ahaa wixii afxumo ahaa wixii dibindaabi ahaa ee qaranka loo geystay inaad ka jawaabtaan bay rabnaa idinkoo midaysan oo qarannimadiinnu isku weyn tahay innaku walaalayaal miyaynu diyaar u nahay shacabka reer Soomaaliland inaynu u kala abtirinno waa maya innakoo midaysan ayaynu sanduuqa ku ridaynaa codka innakoo midaysan baynu ku ridaynaa sanduuqa codka taageerayaasha xisbiga kulmiye waa badweyn gobol kastoo Soomaaliland caawa sidaasaa looga dabaaldegayaa waar caajiskii xalay miyaanu naga kicin waar caajiskii xalay miyaanu naga kicin waar mawjada miyaanay rogman waar dadkan masafaari baa waa maya ma basasbaan lagu soo guray waa kacdoon shacab oo mar labaad kalsoonida lagu siinayo mujaahidka halyeyga la loodi waayey mudane muuse biixi cabdi ninka cadowga Soomaaliland ka naxaa waa kuma cadowga Soomaaliland yuu ka naxaa cadowga Soomaaliland inaynu ka nixino diyaar ma u nahay